السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada shabakada kobciya media Ustaad Injineer Xasan Maxamuud Faragle maanta waxaan arki doonaa casharkaas toddobaad sidee loo soo geliyaa sawirka PowerPoint-ga markaan soo furano slide-ka doora aad sawirka soo gelinaysid tusaale ahaan slide-kan aan rabaa inaan soo geliyo laba meelood ayaan ka soo gelin karaa waa mar anoo insert taga iyo mar anigoo ku dhufta halkaas aad u jeedaa insert-ga markaan tagayo ayaan ka bilaabayaa insert ayaan ku dhufanayaa then picture ayaan dooranayaa kadibna waxaan dooranayaa sawirka aan rabo inaan soo geliyo tusaale ahaan sawirkan ayaan soo gelinayaa dib waxaan ku dhufanayaa insert marka waa ka sawirkii ii soo galay halkan waxaad ku samayn kartaa nashqadaha uu sawirkaagu noqonayo ee halka ka dooran kartaa macnaha qaabku noqonayo ayaad ka dooran kartaa halka waa laga soo gelin karaa waxa kale laga soo gelin karaa slide-ka labaad hadaan ku eegno halkaas oo ah button-kaas ayaad ku dhufanaysaa insert kadibna isla sawirkii ama mid kale isla kii ayaad ku soo ama double click ku samee ama insert kaliya sawirka dooro kadibna insert ayaad dhihi kartaa sawirkii hadana sidaas ayaad ku soo galaysaa qaabkaas ayaa lagu soo gelin karaa sawirka waxaan kala baranaynaa sidee lagu soo gelin karaa sawirada noocyada kala ah clip art oo kale sidee lagu soo gelin karaa insert tag clip art tag kadibna clip art waa sawirro ku jira computerka waxa lagaaga baahan yahay inaad raadisid dhinaca midig meesha ku qoran tahay searching for waxa ku qorataa sawirka aad raadinayso sababtoo ah sawirrada waxay ku jiraan computerka saan u raadiyo markaan waxa ku qoraya computer masalan ba sawirka waxaan rabaa computer ayaan rabaa dan hadhowdii go baan dhahayaa go markaan dhaho raadi computer muxuu ka soo qabtay computer ka soo qabtay computerkan gabadha ku fadhida rabaa inaan soo geliyo laba qaab baan soo gelin karaa anigoo halkaa ku dhufta oo insert dhaha way soo gelinaysaa iyo aniga oo soo jiida oo saa u dhex keena oo ku soo gelin karaa waxaan kaloo ku soo gelin karaa aniga oo intaan sidaas u dhaweeyo double click laba jeer ku dhufto labada qaab ayaan ku soo gelin karaa waxa loo yaqaano sawirka loo yaqaano clip artna qaabkaas ayaad ku soo gelin kartaa ugu dambeyn qaabka in lagu soo gelin karaa waxa loo yaqaano shapeska iyagana dooro shapeka sameey markaa shapeka sameysid intaada sameyn marka hore shapeska dooro nooca sameynaysid misalama kanoo kale rabo inaan sameeyo waa ku sawiraysaa saas ugu sawiraysaa hadana mid kale dooro haddaa rabtid smartiga wey waa lamid iyaguna smartiga marka iga dhacday shapeska haddaa rabtid taayna sawirtid u soo qaado kadibna sidaas ugu sawir siida saasay kuugu jirtaa qaabkaas ayuu kuugu xaraysan yahay qaabkaas loo soo gelinayaa chartiga sidoo kale qaabkaas loo soo gelinayaa waa maxay isagana waxa loo baahan yahay in aad chartigii dooratid kadibna aad dhahdid qaabkaas ayuu kuugu soo gelinayaa isna chartigana qaabkaas ayuu kuugu soo gelinayaa marka insha Allah qaabkaas ayaa loo soo geliyaa chartiga iyo waxaas oo dhan iyo mar haddaad hal mid ka mid ah soo gelintooda aragtid inta kale way fududaanayaan insha Allah la soco cashirka 8aad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.